Einstein waa kan Einstein wada garanaysan Soomaa Einstein aqoontiisi waxay gaarsiisay in uu yiraahdo fikrad uu gaaro la yiraahdo waa fikradii lahaanshaha oo maxay macnaheedu tahay in adduunkan cidi iska leedahay waxyaabahan falaga iyo kawkabyada iyo waxyaabahan uu aad ugu takhasusay Einstein wada garanaysan ugu dambeyn Einstein wuxuu ogaaday waxani wax dabeecadii intay sameysay iska socda inaysan ahayn waxa uu yiri eray cajiib oo oranaya كونكن وحا كدنبيا أود أنا جرانين عدي تاعي لكن أود بكدن بس كوكب كان أما كونكن وحا كدن بس أود ولي بحجله أو أنا إلا هذا فهمين عدي تاعي نصيب ضرر مو إسلامي لكن مو أجادين هل أود أو معمول يسين يشرت مركا أقونتها وأقونتها هل كجرسيني سأقون لي هذا تنا معها أن شهادة أنا سكسو قادنا إنه هذا سوكوبه وحرب شرحات ديرنا أنو قلي إذن ما شرحيه لكن ضد كاني وأقويهن صو معركتي يعني دين الإسلام كبحث أنت كسمين ريسيرش أنت كسمين وضع إسلامي هذا ما أنت كسنيسو أقويهن كرجال بيض سلادة والله مالش شو وكوجينية السجيبة أنت وحرادية دين الإسلام ككسر نقونية كدبنا كوش شرحيه قبل أول رئيسة قبل عسي وكنديان وي وقبل دكتورة دكتور كيبرتي وتخصص وحوي في عنو لهذا بحث بدن bay sameysay research badan bay sameysay ugu dambeyn diinta islaamka ay qaadatay walina way nooshahay ninkaas Jeffrey Lang la yiraahdo ninkaasi haduu nool yahay wuxuu qoray buugaag Ingiriisna waa lagu helayaa saan filayo wuxuu qoray buugaag badan oo markii uu islaamay ka bacdi uu ka hadlayo diinta islaamka wanaageeda ilbaxnimadeeda dhibaatooyinka jira maadaama isagu garanayo cadow ku ah xalkii loo heli lahaa sida xal loogu heli lahaa waa buugaag aad iyo aad muhiim u ah slides-kana waad helaysaan idinkaana tixraaci doona sababaha ay ku islaameen mid walba iyo baxdigiisu waxay qaadanaysaa in fadhi kale la yeesho laakiin idinkaan idin daayay si aad idinku aad u soo akhridaan waxa la yiraahdaa wax ijaaz ilmi la yiraahdo diinta islaamku waxyaabo mucjizooyin ah oo lagu dhaxarkay baa jira tusaale ahaan diinta islaamku maxay sheegtay inuu dayaxa uu dilaacay oo nimankii Quraysh ah nabiga waxay ku yiraahdeen nabi baa tahay waxaad samaysaa dayaxa laba nooga dhig midna buurtan agtanada soo dhig qaybta kalena halkeeda ku daa ma ilaahay baa markaa iyo waxdaaliya إلهي مركها وحو سميي habeenkii buu laba uga soo dhigay qaybna buurtii agtooda ahayd baa la soo dhigay qaybna halkii baa lagu daayay nimanka Quraysh waxay yiraahdeen ha caawana waan aragnay aroorta baadiyahan sugaynaa nimanka imanaya baadiyii baa la yimday waa wareysteen waxay yiraahdeen xal maxaa dhacay dayaxii soo kii laba u qaysana leeyeen midna buurta saaraa qaybna qarka kalena xagga ku haray waxay yiraahdeen idinka iyo annagaba wuu nasixray mowduuci halkaas ay kaga baxeen laakiin meesha waxa ka daran cilmi baa lagu sheegay Soomaa inuu dayaxii dilaacay imika dayaxii markay gaareen sawirkaas waa sawir u maaratay ay iyagu soo sawireen way waa sawiray soo sawireen maaratay inuu dilaacsan yahay sawirkaas ay soo qaadeen waxay yiraahdeen dayaxu uu dilaacsan yahay bay yiraahdeen wal jibaal awtaada soo maaratay awtaad maxaa la yiraahdaa tiirka meesha ku jira hoos in badan xoog loo hoos loo galiyay si uunan maaratay uunan u dhaqdhaqaaqin shayga loo waxeeyay Soomaa cilmigan maanta la jooga casriga kolkii buuraha research lagu sameeyo waxa la ogaaday buurtu inta ay muuqato inta ay dhulka ku jirtaa ka badan waarin kale oo ajaayib weey quraankuna sida uu wax u dhigayo waa noocaas weey muslimiintu maanta goor dambe oo iyaga research sameeyay wax soo ogaadeen baa la oran aayada quraankeed baa waxay tiri maxaa ka muhiimsanayd inaad adigu soo saarto oo u geyso tiraado cilmigii mucaasirka ahaa ee waxa weey casriga ahaa iyo aayada quraankeed bal isku eega waa kan inaan inagu ugu horeynay